Bismillahirrahmanirrahim. Daawadayaal ku soo dhawaada Tahay Inspires iyo barnaamijyada inoo soo gudbin jirtay. Haddii Ilaahay yiraahdo waxaan bilaabi doonaa barnaamij cusub oo la magac baxay Book Akhri, Bookna ku tali ama Read and Recommend a Book. Barnaamijkan wuxuu noqon doonaa barnaamij inoo socon doono oo usbuuc kasta ama labadii usbuuc hal mar kadib lagu soo jeedin doono book aan isleenahay bulshadeena iyo ummadeena wax badan u faa'iideyn doono. هدفك عن برنامج كان أسلوب كوريني وحاول أفكار برنامج كي وقت عدد بدن قارت ومدينا كفاية ستو ومرتين وقع محمد عبد العزيز حسين وكم إدارة الصومالية ودن كان تركي وحكو برتي ما أنتنا كشقيو شركة صومالية وما قاعدة هي ميتسن وكشقيسها لتلنتا يو وحبرشدة هو اللي حريرو حرمت هذا نايت هاي مقالة أنقرة قارهان كيزلاي وحنرجين إن عند بدن كفاية سندونا برنامج كان سوجيدي هالقوة ده برنامج كاننا هذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مقعي محمد عبد العزيز حسين. ما أنتوا حمرتوا هاي سلسلة بوغر فينتي برنامجك تاهي انسبايرز ولك عبد السلام دادي بوغان ومقعسو ياهو مفمانجيز أما يادورتي برعاد كيني وهو تصالين كسابسان شاكو نحمر دونتا لابد دولي يلا إنسان لابد أسو وجيه دون إسبدا نولاد نولش يكون نولاين هرمارك الله إيغا taasoo aan kaga bogan doona sheekada qaybta soo socota. Labada doole sheekadan ku jira waxay noqonayaan buuga ku noqonay Sniff and Scary oo aan u tarjumnay Uriya iyo Ordaya. Halka labada insaan ay yihiin Him and How oo noqonaya Ataabe iyo Adkayste. Sheekadan kaga bogan doona macnaha ku xambaarsan yihiin sidaas. Sida macnaheedu laga dareemi karo, Uriya iyo Ordaya waa laba noole ama laba doole oo u tartama gaarista xilliga markaa leeyihiin. labadan doole sida magacooda laga garan karo Uriya iyo Ordaya mid wax uu urinaya hadii goor isbedelkii dhacay uu dabagalaya si uu soo helo midna waa Ordaya oo meeshuu joogay inuu ku sugnaan ee meel kale u gudbo ayuu hadii goor diyaar u yahay halka labada insaanna midkood mid la dhaho Ataabe oo hadii goor wuxuu soo wajahay inuu Ataabo eed sheegto dhibaatada jirta oo ka hadlo mooyaan wax kale soo kordhin kan kala Adkayste dhibka uu wajaha laakiinse qaabka uu waajiho ama qaabka uu hadlo ayaa ka duwan sheekadana ku saabsan kana dhexdhexi doonta meel af Soomaali ku noqonaysa Suriyo goob afartan noole subax kasta markay soo kacaan labada doole iyo labada insaan waa daris isku meel bay joogaan hadii goor markasta waxay aadaan oo subax u soo kalahaan maciishada soo aysan lahayn maciishada ay sheekadan ku dhisan tahay oo maalin kasta u soo kalahaan raadinteeda waa burcadka meeshaas yaala burcadka si u gaaraan waxa ka xiga wadooyin fara badan oo inay gaaraan mudan hase ahaatee labada doole Uriya iyo Ordaya ayagu subax kasta markay soo kacaan ma raadiyaan wadadii shalay oo kaliya wada ay xifdiyaan ku ordayaan ma jirto ee waxay sameeyaan maalin kasta mid uu Uriya raadkooda shalay urinaya midna uu ku ordaya wasdaba ordayaan labadoodu sidii meesha rabeen u gaaraan marka burcadkoodu subax alla keeno wada ay xifdiyaan ma aha waxay ku soconayaan wada subax kasta ay tijaabeen ku helayaan trial and error tijaabeen luqan miya sidan miya kan miya bay ku gaarayaan qaabkaas ku socdaan oo dambe way helaan halka labada insaan Ataabe iyo Adkaystana ay tartiibtooda subax xilli hore soo kacaan isku qasbanay ay soo nastaan muddo joogaan sida ogtihiin barqadis ka soo baxaan maadaama wadada xifdisan yihiin wadada ay soo qaadaan wadadaas ay qaadaan kadibna meeshii burcad ku yaala ila weeba yaqaanama maalin kasta halkaas ay tagaan sheekadan burcadka ku jira oo ka hadlayno ma aha burcadka dhabta ah oo kaliya burcadkan wuxuu u taagan yahay qofka hamiga xambaarsan yahay waxa aad jeceshahay wuxuu noqon karaa future yani mustaqbal aad hiigsanayso wuxuu noqon karaa hami aad xambaarsan tahay wuxuu noqon karaa jaamacad aad ka qaljiso wuxuu noqon karaa guur rabti inaad gaarto wuxuu noqon karaa waalidka rabti inaad xajka u kaxayso wuxuu noqon karaa whatever wax kasta rabti inaad gaarto maadaama labada doole subax kasta wada ay u tijaabinayeen tijaabis ku beesgaraysan ay ku aadayeen marna kama dhumaan meeshooda way soo helaan labada insaanna subax kasta wada ay xifdiyeen bay ku imaadaan qasad waxay ka dhexdhici doontaa oo sheekadu isbedeli doontaa marka laga baxo comfort zone xaaladii deganida lagu jiray marka laga baxo maalin maalmaha kamid stationkii ama xaruntii bakhaarkii uu yaalay burcadku subaxay kamid oo loo imaanaya mise burcad ma yaalo labadii doole markii ay imaadaan meesha imaadaan ay ka waayaan awalba subax kasta ayagu meel xifdiyaan oo imaan jireen ma jirina waxay sameynayaan oo kaliya dekii urin jireen Uriya wuxuu bilaabayaa inuu xarfin bilaabo geesaha ordo burcadii meesha ka dhamaatay dabagalkeeda u raadiyo Ordaya inuu daba ordaya buuga halka dhanka kale labadii insaan
ay barqadii soo kaceen ayaga baashadu waa diyaar meel ba diyaar ugu tahay inay carfiyaan ordaan uma baahan wadda ay xifdiyaan baa meeshaan taalo waddadaasi ku ordayaan waxay ordaan meesha imaadeen maxaad ii dhibatay burcad miyaa burcad hadduu soo leey maxaa xala saaxiibkan cataaba wuxuu bilaabayaa inuu catow bilaabo ma ahan meeshaan baashi taalan u baahanahay meel kale ma aadayo ilaa waxbaa isbedeli doona meeshaan haddii goor burcadkan ugu imaan jiray haddana burcadka waa inuu meeshaan aan ka helaa What are you laughing at? They moved our cheese and you think this is funny? Oh, Ham, we keep doing the same things over and over again, and we wonder why things don't get better. saaxiibkan adkaysta wuxuu ku adkaysanaya wuxuu leeyahay waa suurtagal waa laga yaabaa inay isbedelaan laakiin uma malaynayo haddii bahash move ay ka dhaqaaqday meeshii ay oola jirtay waxaa suurtagal meel kale inay aaday aan raadsanno aan daba oradno doodad halkaasay ka bilaaban doontaa insaan baan nahay annaga waxaan title u leenahay inaan waxaan rabnay helno uma baahbaan inaan raadino subax kasta waana meeshaan ugu talagalnay haddii goornoo yaalaan meeshaas waxaa ku jirta yasmadaasoo yasayaan dooliga yani asagoo xayawaana hadduu heli karo anaguna waa heli karnaa ma ahan micno sidaas waxa weeye insaan haddaan nahay waxaan title u leenahay privilege u leenahay imtiyaaz u leenahay inaan heli karno waxaan markaas doonayna burcadka sheekadan saan hore usoo sheegay wuxuu noo matalayaa rabitaanka hadafka markaa rabtay hase ahaatee ka waran haddii hadafkii aad gaaritaankiisii u isbedelo qaabka u rabtay maana qaab kale u noqdo ama nolosha la qabsatay oo fududay haddii wax iska bedelaan ka waran qaabkee baad yeelaysaa haddaba sida labadan qof ku jirta sheekadan soo wajihi doonta labadii burcadkii markuu meeshii loogu talagalay maan meel kale uu noqday oo meeshii awal ugu barteen ka waayeen midkood wuxuu bilaabay inuu dhaho maya halkan bay oolaysaa waana halkan ka helaa waxbaa isbedeli doona halkan baa ku sugaya waa Catabe saaxiibkii wuxuu bilaabay inuu adkaysto oo dhaho mataqaanaan waxaan soo helaya waa raadinayaa wuu orday meel kala duwan buu tagay stationkaas wuxuu ka helay dhowr xabo burcad oo markaas si dhamaada wuxuu yiri haddaan meeshaan joogo intaan ka tagay meel kale aan tagay meeshaan aan ka heli karo dhowr xabo burcada gabal yar oo burcada haddaba waxay micnaheedu tahay haddaan sii socdana waa heli karaa wuu sii dhaqaajinayaa wuxuu ordo wuxuu tagayaa stationkii dhabta ahaa ee burcadka ka buuxay qoraxdu waa gabal laciif qoraxdu way sii dhacaysaa hase ahaatee waxaa meesha uga muuqata inuu soo daalan yahay dhidga ka dhammaaday maanta dhan baadi goobayay hase ahaatee wuxuu ka dhex arkayaa meeshii burcadka labadii doole oo saaka xilli hore intay imaadeen alaabtooda rartay gurigooda mar hore u laabtay haddaba labada farqi u dhexaysa labada dooli iyo insaanka maxay tahay waxa weeye subax kasta markay soo kacaan labada dooli ayagu wadda ay xifdiyeen ay ku dhaqaajinayaan u socdaan ma jirto waxa weeye subax kasta waxay u soo kacaan inaysan haysan burcad oo kale inaysan haysan hadaf in hadaf ay leeyihiin laakiin waddadoodu ahayn mid exactly ah mid meel ku xaniban aysan ahayn ay tahay mid isbedeli karta baraf baadii kara ka leexo bunda buri karta dhinaca kale ka mar traffic bas xiri kara si kala yeel gaariga ka banjaray moto qaado yani in arajku isbedeli karo arajka yani wasiilada isticmaalaysa laakiin hadafkaaga hadii ku huseenka ahaan karo halka labada insaan ee ku jira Catabe iyo adkaystana ay yihiin kuwa noloshooda programan ay tahay ay meel ku taagan tahay xifdis ku socoto hal wado ay yaqaanaan wadadaas ay ka baxaan wadadaas maanta haddii hal wax iska bedelaan ay meeshaas ku harayaan haddaba labada qof markii dhibka soo wajaho laba ikhtiyaar bay kala leeyihiin in midkood iska fariisto calaacal galo oo dhahaan Catabe baan galay ilaa wadada inta laga hagaajinayaan ka gudbaya saan airportkii meesha u socdo u gaaro saan hadafka laha u gaaro haddii jaamacadda iga xirmatay meel kale haddaan hadaf migaan lahaa gaari waay inaan waddo kale u maro iyo inaan gaarigan ka degno dhinac kale u gudubno gaari kala qaadano haddaba sheekadan buga Who Moved My Cheese gunaanadka iyo dulucda sheekadu maxay noqon kartaa ma jiro hami iyo hadaf hal meel taagan noloshu way soconaysaa hirku wuu soconayaa adiga ayaa ku taala sa u dabageli lahayd adiga ayaa ku taala inaad u dabaalatid mawjada dhanka u socoto ma jiro wax waari doona si loogu tago ilaa dhammaad waari doona waana had iyo goor aad diyaar u haata isbedel dhici kara isbedelkuna soo ku cabsi gelin aadna noqon mid nolosha ku nool yahay ee programsantahay kaliya ee ay ugu yaraan la jaan qaadi karto si kastoo kuu soo wajahdo ugu yaraan aad flexible noqon kartid isbedelku had iyo goor ma aha wax burcadkii shalay waa burcadkii shalay midka maanta aan adaa laga rabaa abuuridiisa kan birina gaaristiisa waa mid hami markasta xambaarsan tahay
sheekadan saan ku soo aragnay waa wax ku saabsan qofka inuu hami xambaara hamigaasna gaaridiisa ka shaqeeya wuxuu noqon karaa hadaf kula yaala laakiin marka qaad u baahan tahay meel fog inaad gaartid sad u aragto kan hamiga waxa kula yaala marka qaar meel fog ka yaala aad u baahan tahay wadada inaad martid oo aad gaartid sheekadan sheeka la mid ah buug u soo dhow buuggan buug la xiriira isla mawduucan taabanaya haddaan ku taliyo wuxuu noqon karaa The Alchemist oo qoray Paulo Coelho buuggaas oo hoos aan kula wadaagi doono linkiisa ama linkixiisa oo kala dhigi kartaan Carabi English ba labadaba taladana buugga xigta kaasoo noqonaya ka bogasho waxaan idin leenahay السلام عليكم